dalka Afghanistan gabar yar oo 11 jir ah oo ku dhalatay xabsiga gudihiisa ayaa nolosheeda xabsiga ku qaadatay waxayna hadda danaynaysaa inay soo aragto nolosha taalla xabsiga banaankiisa gabadhan waxay xabsiga ay kula nooshahay hooyadeed oo hore loogu xukumay xabsi daa'im kadib markii ay dad dishay wariyaha VOA-da Sabiixullah Qazi ayaa warbixinta noo soo diray waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere aabahay ayaa dad dilay arrintaas ayaa keentay in la xiro aabahay hooyaday walaalkay iyo adeerkay aabahay iyo walaalkay xabsiga ayay ku dhinteen hooyadayna xabsiga ayay ku hartay halkan ayaan ku dhashay oo aan ku koray aniga muna uurka ayay ku jirtay markii aabaheed walaalkeed adeerkeed iyo hooyadeed xukun dila lagu riday iyagoo qayb ka qaatay dilka 27 qof aabaheed iyo walaalkeed waa la daldalay laakiin hooyadeed Shiriin Guulah lama dilin maadaama ay uur lahayd hadda 12 sano kadib muna waxay isweydiinaysaa nolosha hortaala riyadayda weyn waa in aniga iyo hooyaday aan banaanka u soo baxno oo aan walaalahay arko muna waxay dhigataa dugsi hoose oo xabsiga ku dhex yaala waxay la ciyaartaa carruurta ay hooyooyinkood xabsiga ku jiraan waxayna sheegtay in nolosheeda oo dhan ay maqlaysay waxyaabo naxdin leh xilligii waraysiga ay VOA-du la yeelanaysay waxay ku soo celcelinaysay in iyada iyo hooyadeed ay aad ugu baahan yihiin inay xorriyaddooda helaan iyadoo sheegtay inay doonayso inay wax barato waxaan doonayaa inaan gurigeennii aadno oo aan wax barto dhakhtarna aan noqdo mina hooyadeed ayaa u diiday inay gabadheedu xabsiga ka baxdo madaxweyne Ashraf Ghani ha idaldalo intii gabadhayda la iga wadi lahaa maxaa yeelay nolosheeda ayaa ku tiirsan iyada la'aanteedna ma noolaan karo xataa hal daqiiqo waan isdaldalayaa Shiriin Guulah waxay sheegtay in gabadheedu ay bannaanka khatar ku galayso waxay sheegtay inay leedahay 2 wiil oo nool laakiin ayna ka warhaynin iyada iyo walaashood iyo meesha ay ku sugan yihiin marka hadda waxay joogtaa xabsiga waxay dhibana u tahay dambi ayna iyadu gelin mustaqbal aan la hubinna wuu hor yaalaa